السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركي قدام بي قبل كهيران أبوري قعنت إذا مدى الدولة معويسلي أي سوق شيء مدكير أفر إلى 14 ساعة كدي مركي كوحدة على الشباب هل كان أي دونيين إني كجسي قدبان بورها يصومن لكن قرشه هودي ودعي صوبي الشباب هل كان واللي قول لأي ميدت كوذا أيالا عر يدل أيانا لقد دقية كار أنت أيسن إذا مدى الدولة يكون الديجان كأيسن سبوح ذو ريجن أبوري دجال كلا أيا كدع الدولة كا مقالة آذن يبال أما دقمة آذن يبال يضنا الشباب أسر السعوديين هل كان أي دولان كسو قادان أي لحد الله قلي أو سراكيش الدولة وحي شيء يسا إن لصو أفجري وركي قدام بي فرماها الدجال كشباب لذا دحي هيران أيان دونيا إن هل كان أنكو جسو قد بيو صودو أيان كلها هاي وأربعة تاريخنا وحي كواستي سنتهاي داو ضيال 9 أبريل 2025 waxaanu guda galaynaa qaybaha hore ee wararkeena dagaalkii ugu qaraaraa ayaa maanta mar kale galinkii hore ilaa iyo galabta soo gaaray deegaanka Aboorey kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka iskaashanaya mar kale ay al-shabaab guluf ku qaadeen kadib dagaal shalay aroortii soo bilowday oo isla ciidamada dawladda iyo kuwa macwiisleyda ay ku qaadeen maleeshiya kooxda al-shabaab ka tirsan oo tiradooda lagu qiyaasay 600 ilaa iyo 1000 inay u dhaxayso oo soo buuxdaafiyay aagan iyaga oo doonayay dhinaca Sooman inay aadaan dhinaca Beerayabaal inay isku fidiyaan sidoo kalena dhinaca Maxaas ay gaaraan al-shabaab waxay rabaan in ay marinka isku xiraya Hiiraan iyo Galgaduud ay furtaan sidoo kalena dhul ay ku gorgortami karaan oo ay ku dagaalami karaan gurmadna uu ugu imaan karo ay raadsadeen laakiin istaraatiijiyadaasi inay fashilantay ayaa mar kale muuqata tan iyo markii kooxda al-shabaab ay awoodi weysay gobolka Shabeellada Dhexe inay isku fidiso bishii barakaysneed ee Ramadaan waa isku day kale oo kooxda al-shabaab loo arko in furan cusub oo dagaal ay ku diyaarisay inay dhul hor le isku balaariso gaar ahaan dhulkii sida weyn looga dagaalamay 2 sano ka hor ee gobolka Hiiraan hase ahaatee arintaasi way shaqayn weysay aagan marka loo fiiriyo Beerayabaal ilaa iyo Aboorey waxa il gaar ah ku hayay dadka deegaanka oo ku wargeliyay ciidamada dawladda iyo macwiisleyda haddii halkan aan laga soo gaarin in al-shabaab difaacyo waaweyn durbadiiba ay qoteen oo ay ku tala galeen inay halkan muddo fog ka dagaalamaan dagaalkii shalay dhacay oo ahaa mid aad u qaraar dhinacyada khasaaro weyn ayaa soo kala gaaray waxaana dhinaca dawladda Soomaaliya uga baxay dagaalkaasi saraakiil la yaqaano oo uu ka mid yahay sarkaalka lagu magacaabo Asad Cusmaan sidoo kale ciidan ayaa halkan ku geeriyooday al-shabaab horjoogayaal iyo maleeshiya ay iyaguna halkan looga laayay oo qaarkood la shaaciyay in ahaayeen kuwa halis ah oo degnaanshiyaha gobolka Hiiraan qatar weyn ku ah intaas oo kaliya kuma eka ee maanta dagaalkii dhacay ayaa isaguna ahaa midaan caadi ahayn iyadoo la sheegay in cir iyo dhulba laga duqeeyay al-shabaab iyadoo sidoo kale arin la yaab leh ay ka taagneed deegaankan masaajidkii deegaanka ku yaalay ayaa dagaalamayaasha al-shabaab lagu eedeeyay inay ka dhex dagaalamayeen tan iyo saakay isla markaana shalay masaajidkan diyaarado ayaa duqeeyay mindhaaradda masaajidka ay al-shabaab saareen qoryaha waaweyn si ay ciidamada dawladda oo la dagaalamaan maadaama mindhaaradii masaajidka la dumiyay isla masaajidka qaybo kamid ah ay al-shabaab ka sameysteen dhufeysyo halkaasi oo laga saari waayay laakiin markii dambe duqeyn cir iyo dhul ah iyo ciidanka inventory-ga oo dhaqaaqay al-shabaab looga saaray guud ahaanba Aboorey iyo masaajidkii ay ka dagaalamayeen dawladda Soomaaliya saraakiisha u hadlaya waxay sheegayaan in al-shabaab badan meedadkooda halkan ay yaalaan oo ay ku jiraan rag la yaqaano oo dhibaato badan ku hayay dadka deegaanka isla markaana xisaab rasmi ah ay dawladda soo gudbin doonto si loo xaqiijiyo tirada dhimashada al-shabaab iyo haddii ay jiraan maxaabiis laga qabtay al-shabaab bishii Ramadaan 3,000 oo askari ay diyaarsadeen waxayna ku tala galeen inay la wareegaan Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe Muqdishona ay qalqal geliyaan laakiin waxa muuqata in hadda mar kale qorshihii ay isku dayeen meesha uu ka baxay iyadoo qorshihii bishii Ramadaan al-shabaab uu ka dhicisoobay kadib markii aagii gurmadka ay ka helayeen ee Opale oo buunda ay ka sameysteen la burburiyay duqeyna lagu burburiyay haddana dhinacan Beerayabaal iyo marka la fiiriyo Aboorey waxa dawladda Soomaaliya ay saartay xoog iyadoo xusid ay mudan tahay in la xaqiijiyay General Odawa iyo ciidan badan oo uu wato in gurmad ay ku gaareen aagan isla markaana dagaalka markii dambe ay ka qayb qaateen iyadoo markii dambe dagaalka sidaasi dawladda Soomaaliya ciidankeeda iyo ciidanka macwiisleyda ay ugu guuleysteen reer Hiiraan ayaa ku hanjabaya
al-shabaab haddii mar kale ay isku soo dayaan in dhulkooda ay ku soo dhiiradaan 2 sano ka hor cashiradii ay u dhigi jireen in ay u dhigi doonaan. weli abaabul dagaal ayaa socda oo deegaano al-shabaab ay u sii guureen ayaa la sheegayaa in looga daba tegi doono. waxaana socda sidoo kale howlgal amni xaqiijin ah oo ciidamada dawladdu ay doonayaan miinooyin haddii al-shabaab ay ku aaseen deegaanka in gebi ahaanba laga saaro. dhinaca gobolka Shabeellada Dhexe duleedka Aadan Yabaal dagaal qaraar ayaa ka dhacay maanta. dagaalkaasi oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in lagu soo afjaray al-shabaab aad u tiro badan oo qorsheeyay weerarna ku ahaa degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. meel 5 kiiloomitir u jirta Aadan Yabaal ayaa la isku helay. al-shabaabkii soo socdayna dhex ayaa loo sii galay oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa u sii diyaar garoobay kadib markii ay heleen xogta kooxda al-shabaab, taasi oo keentay ayaa la yiri in al-shabaab la jabiyo dhammaanna intii weerarka ahayd dhulka la dhigo, iyadoo qorihii laga soo furtay iyo gaadiidkii kale ay wateen. al-shabaab marka weerarkan uu qabsanayay waxaa la sheegay qaarkood gaari ka halaabay in ay riixayeen, qaarna mootooyinkooda ay riixanayeen maadaama dhulkan bacaad uu yahay. hal marna 4 koono ay xabad kaga bilaabatay oo lama filaan ay ku ahayd. dawladda Soomaaliya ciidankeeda ayaa u muuqday toddobaadyadii ugu dambeeyay inay wax badan ka bedeleen hanaankooda dagaalkii al-shabaab ay kula jireen, waxaana ciidamada dawladda ay u muuqdaan in jabhadeen ay bilaabeen. sidoo kale macwiisleyda ayaa u muuqata iyaguna in jabhadeen ay bilaabeen. jabhadeyntaasi oo ah in al-shabaab dhex loo galo, in al-shabaab meesha ay joogaan lagu weeraro oo la lugeeyo, iyo in al-shabaab sidoo kale la duqeeyo oo gantaalo lagu dhufto goobaha ay joogaan. gantaalada ma aha kuwa diyaaradaha oo kaliya ee duqeyn ayaa loo geystaa saldhigyada al-shabaab ay joogaan. al-shabaab oo isla ficladan oo kale horay u sameyn jiray. dawladda Soomaaliya maadaama guulo ay ka sheegatay furmaha dhinaca al-shabaab war rasmi ah oo ka soo baxay dhinacooda ma jiro, isla markaana waxa al-shabaab marka ay guulo gaaraan durbadiiba ay ku baahin jireen barahooda internetka iyagoo sheegi jiray tirada ay dileen iyo meesha ay qabsadeen. laakiin ilaa hadda si rasmi ah looguma arag warbaahintooda oo baahinaya xogta ku saabsan dagaalada Aboorey iyo duleedka Aadan Yabaal ka dhacay oo dawladda Soomaaliya ay xaqiijisay in al-shabaab jab weyn lagu gaarsiiyay. gulufka al-shabaab ka dhana ayaa dawladda Soomaaliya weli ay abaabulaysaa. wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab ka dhana ahna inuu sidan ku bilowday ee dadka qaar ay u arkaan, halka dadka qaar ay u maleynayaan in weli uusan bilaaban oo arintan ay tahay oo kaliya boorsamiindo. waxa soo socdana aad iyo aad ay uga weyn yihiin waxa xilligan al-shabaab loo geysanayo. wixii macluumaad ah ee ku soo kordha dagaaladii ka dhacay duleedka Aadan Yabaal iyo duleedka Buulo Burde ee Aboorey oo labaduba ciidamada dawladda ay hadda gacanta ku hayaan, muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan. halkan haddii aadna la soo gaartay waan kaga madcelinayaa daawashada muuqaalkan. mahadsanideen.